gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro iyo wafdigu hogaaminayo oo hal maalin ka hor soo gaaray magaalada Ceerigaaba ayaa wuxuu booqday madasha uu ka socdo shirweynaha beelaha Habar Yunis ee Daalo halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyay munaasabadan uu booqday gudoomiyaha golaha wakiilada ayaa ugu horeyn Cali Waran Cadde hadallo kooban oo ka soo jeediyay waxa kamid ahaa waxaan ahay siyaasiga Habar Yunis shirkan ay u fadhido siyaasaddu waxay ka noqon doontaa qayb weyn siyaasaddaas oo ku wajahan sidii ay wax ula yeelan lahaayeen ama ay nabad ugu dhaqmi lahaayeen beelaha walaalahooda reer Soomaaliland siyaasad iyana wanaagsan oo mustaqbalka Soomaaliland sidii reerku uga noqon lahaa ama uga geli lahaa kaalin hormooda haddii reerku ay baarqabadu ku bataan oo reerku awood u yeelan waayo inuu baarqabada kala dabro wuxuu reerku noqon doonaa boqol haraad oo 3 awrow aad u waaweyn ku jiraan dabadna waxay jajabin doonaan qaalmaha iyo duqahaba reeraha Soomaaliland ee darisyadiinahay waxay awoodeen inay baarqabadooda kala dabraan waxa isaguna madashaasi ka hadlay Saciid Sulub mar haddii saaka shir gudoon loo dhaariyay shirkii gudoomiyaheennii baarlamaanka oo madaxdeennii u dambeeyay uu inala joogo Suldaan Maxamed Xirsi Qarine berri imanayo waxba shirkii uma hadhin hadaba iska seexdaba misna waxaan taageersanahay ama taageersanahay shakhsiyan shirkan inuu shaqo noqdo inaan siyaasad lagu soo qaadin siyaasaddu waa siyaasadda reerka ma aha mid shakhsi ugu dambeyntiina gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo munaasabadan hadallo kooban iyo duco ku soo gabagabeeyay ayaa waxa hadalladiisa kamid ahaa shirka beelaha Habar Yunis ee Daalo oo shir qareed iyo shir nabadeed